بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا وان سلام يا دمان كسوق البلاياش حفلة بلارن المدح إيه الشعب خد يدور تنيرو ويلين يقبله دمان وعليه السلام يا وحنا سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب waxaan halkan hambalyo oo la dirayaa sanad guurida ururka OSU taasi oo maanta xafladeeda lagu qabanayo magaalada Nairobi oo ay ka soo wada qayb galeen bulshooyinka reer Gaadeen iyo dhamaantood. hambalyo aan idin leeyahay hambalyo farxad weyn bay tahay inaan hambalyo idin soo diro oo hambalyadeeda idin la wadaago udabadan kulli lagu suurtagelin inaan hambalyo idin soo dirno أما أنت ما شاء الله أما فرحنا لكن عاود تنبأ رحمة إلهي المسيء إلهي أنا كنا حسن الحمد لله هاي الحفلة قيمها بدنا اللي سويت أنت أسكدي وحان كلا أنها كان الحمد لله أود رياء كارهان أوروكا وإسيو تمام تدمير كسيدين يدعنا وذكر شمان أيام يوم رحمة الحمد لله أود رياء وغيرها أنا بلو درجات هذا دوس الرياض ويسير مغني شافي شغال دي شاف شنابو هم كلام سلام ودرجات كل يلا مغني يسوي كوريني واسماعيل جبرت بينح دمان ترى حنا هاي الدمان دنيا غير ويسي دمان دنيا ويسي قول أيه من الله هم بلو نحن نكسر درجات إن شاء الله تعالى بديه خير الوادية bartamaha gobolada khaasatan gobolka qorraxiyada hadda idin ka soo diraya marka dhammaantiin hambalyo leh inta kadib waxaan kala hambalyo dirayaa oo fursadan uga faa'iideysanayaa siideyntii Cabdikariim Sheekh Muuse qalbi mideey Cabdikariim Sheekh Muuse waxaan ilaahay qowlan mahadcelinayna siideyntiisa Allah subhanahu wa ta'ala bilaada hadii la dhahana inka horjooga oo guuleysiga Itoobiya oo hadda wax bilaada siiday jira أتجري شيخ موسى هران أولنا فرصة لنا لهين لكن هذا ما حنود لنا حنبليه أنا بعد أن يرى الهيل بعدين إلى ما تنظر هلا يا هرين يوسف تجري لنا حنبليه صدرنا أتجري شيخ موسى هذا واحد فينا إن شاء الله أبكي من الجارية وقت أتجري شيخ موسى الحري حلو ما يتصل شعب حري عيد يعرفه يا هرين عيد بس عرفه إلى هو اليوم ما تكلم عليه هذا waxaan laga sii daran taas meel aan ku iimaan lahidin meel aan galana ma lahidin waxaan ku soo dhawaataa fara badan laakiin farxadii sidaan ku leeyahay oo waqtigaas xamlo badan oo lagu dhacay oo laga soo darsay markii intii lagu celiyay iyo ceelkii madaxweynaha xilliga lagu dhacay waxaan ka biskanay hadda markii Cabdikariim Sheekh Muuse oo xorriyadiisa dib helay hadda Cabdikariim Sheekh Muuse waxaan leeyahay waxa mahad iska ilaahay ka soo dayay aad gacantiisa haddana insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan hore u socoto oo aad ku socoto maqsadkaaga hambaliyada Cabdikariim Sheekh Muuse kadib waxaan la hadlayaa dhalinyarada OSU cidda maanta rajo laga sugayo waa idinka cidda dhalinyarada waa idinka cidda waxbaratay waa idinka mustaqbalka waa idinka awalan waxaad ku dadaalaysaa intaad hadda qurbaha joogtaan wadaynta Soomaaliyeed iyo walaalihii Soomaaliyeed gacantiina soo gelisaan iyo inaad ku dadaashaan inaad Soomaali ka dhex saartaan qabiilka xunka ah ee kala deynaya soo dadaalaan ilaahay dhan walba halgankana ku dadaala oo halkiina ka sii wadaan ilaahay waxaan kala la hadlayaa iyagana oo fursadooda uga faa'iideysanayaa madaxda ONLF goobtan ay ku sugan yihiin baan filayaa kuwa badan ayaa kamid ah waxaan leeyahay maanta horta waa maalinta lagu rajo fiicneen insha Allah ta'ala waxa la sugayaa waan filayaa wada hadalka oo dhex mari doona idinkii Itoobiya wada hadalkaas kali in badan laga wada mugsan aniga oo dhihi jiray talow wada hadalkaasi noocee noqon doona Cabdikariim khudbadiisi waxa ka mid ah inuu yiri annagu dambas wuxuu ka horseeyay ku fariisan mayno wadada la dhibaxa fadhiyo waqtigiina marukaan bi qadiyada إذا ما حد من كلاب ترينا يا هدي الله إنه مركي أبو هذا كان بشر هدي الله إنه قد يبدأ لنا السلم وتنازلي
qadiyadda dalkana inaan laga tegin ayadna lagu dadaalo dalkan qadiyadiisa waa mid ay kumanaan soo dhinteen mana ilaawi karno dhibaatooyinkiis dhacay iyo midabkii raggii suuqyada laga yimidkooda hawada mislawda lixtantii kiish looga dhigay oo ahaa gaashaanigii dhammaan waa sheekh dad shahiidkii weyn Allah naxariistay marka qadiyadda waxaan dhihi lahaa in hawada tigina wax yar oo macno lahayn oo adduunyada burburkeeda ah oo naf lahayn waayo annaga ayuu sharaf noo yahay oo idinka loo dadaalayo loo dhimanayay annagu inta ilaahay na karsiiyey aad u muudsan yahay waan ka xunahay waan ka xunahay ninkaas waa nin halgamaa ah oo ku sugan gobolka Qoraxay gaar ahaan magaalada Qabridaare wuxuuna si toos ah u daawanayay shirkeennii hadda ka dhacayay gudaha magaaladan aynu hadda ku sugannahay shirkan ayuu si toos ugula socday khudbadihii Cabdikariin iyo qof walba oo halkan joogay ilmaanteen buu arkay waana naftiisa ayuu u soo horay isagoo ku jira bartamaha ogaadeynaya marka wiilkaas u soo duceeya waa in Ilaahay guusha gaarsiiyo